asalaamu calaykum soo dhawaada daawadayaasheena sharafta leh haddii aad ka mid tahay dadka xiiseeyo sheekooyin kala duwan oo adduunka daafihiisa ka dhacay janalka ayaa ka heli doonta si aysan ku dhaafin wax kastoo cusub subscribe dheh gambaleelka furo like sheertana ha ilaabin wax mayn ka dhibayso anakana janalka ay noo qorxi doontaa insha allah sheekadeena maanta waxay dhacday 1970 waxaa jira gabadheeda Jamiila oo sidoo magaceedu u qurux badan yahay meel kasta oo qurxooneed dabeecad ha dhihin akhlaaq ha dhihin deganaanshaha ha dhihin tarbiyad ha dhihin meel kasta oo ka qurxooneed sida magaceedu qurxoon yahay Jamiila waxay ahayn ehli tuulo waxay ahayn beeraley Jamiila maalmaha kamid waa la soo doontay waxa loo dhigay aroos weyn oo tuulada dhan ka soo qayb gashay weyna astaahisha dabcan Jamiilo muddo ka bacdi Ilaahay wuxuu ku arsaaqay wiil waxaana loo bixiyay Cabdalla muddo ka bacdi dhalashadiisii Jamiilo Ilaahay awlaad ma siinin isku day fara badan iyo wax kasta soo bisay way ku guuleysay Ilaahayna uma soo qorin Abu Cabdallah iyo Jamiila way ku qanacsanayeen halkooda wiil wayna isjeclaayeen dhibna kuma aysan qabin maalmaha kamid ayadoo mashaakil jirin magaalada dhib ka jirin tuulada dadka beeraleyda faraxsan yihiin raashinka la goosanayo Cabdalle iyo hooyadiisa Jamiila waxay joogeen beertooda waxayna guranayeen sabuul beerta ayaa dabcan u soo go'day dadka dhan beeraha ayay guranayeen fajaa waxaa la maqlay xabad dhacday iyo qaylo ayaa la maqlay markii la soo diday oo meeshii la imaaday waxa loo imaaday Jamiila oo dhulka taalay iyo Cabdalle oo madax xabad ooga dhacday oo dhintay dadkii oo isku imaadeen Jamiila waxa la isku dayay in la soo kiciyo suuxdinta laga bi'iyo Jamiila way soo kacday waxa la yiri Jamiila maxaa dhacay noo sheeg yaa dilay wiilka aan dhaqsi doonay Jamiila waxay tiri nin faras cad wato ayaa noo imaaday wiilkan xabadii ku dhuftay faraska inuu cadda bis ayaa xasuustaa laakiin wuxuu watay iyo wuxuu ku dhuftay iyo maxaa la yiraahdaa ninka sidoo u ekaa waxba in kama sheegi karo Jamiila hadana markale ayay suuxday dabcan wiilkeedii adduunyada ka qabtay ayaa maanta horteeda ku dhintay inay suuxsuuxdo waa shay iska dabiici ah Jamiila markasta way suuxisay laakiin waxay isku dayayeen markasta in la kiciyo oo wax la weydiiyo waxayna hadalkeedu ku koobaysay faras cad kaliya ayaan xasuustaa dadka tuulada la isku soo bixiyay faras cad laga raadiyay xabadahooda iyo qoryaha haysteen waa la baaray almuhim waxa la waay wax akhbaar ah oo wiilkaas dilay iyo faras cad iyo faras magaalada soo galo tuulada wax tilmaan ah iyo wax sheego waa la waay Jamiila ayaan markii iska joogtay ayadoo filanaynin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu siiyay bedel khayr qaba oo ayay yeelatay waxayna dhashay wiil haddana waxay dhashay wiil kale haddana waxay dhashay laba gabdhood mataamo haddana waxay dhashay hal gabar Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wiilkii wuxuu ugu bedelay 6 cunug oo maxaa la yiraahdaa 3 gabdhood iyo 3 wiil oo kala qurux badan Jamiila dabcan sabarkeedii ee wiilkeedii halka wiil ah ay ku samartay ee qabriga ku geysay Ilaahay wuu soo celiyay waliba hal wiil aheed Ilaahay 6 ayuu ugu bedelay على كل حال waxaa jirtay Jamiila iyo ilmaheeda iyo ninkeeda dib ma isku qabin dad isjecel dedegan bashbash barwaaqo ku nool ay ahaayeen waxaa jiray nin la dhashay Abu Cabdallah oo la dhigi jiray Qalaf iyo xaaskiisa oo la dhigi jiray Salwa ayaa waxay la deganayeen familigan Jamiila iyo ninkeeda waxay ahaayeen dad markasta istagaalo oo mashaakil ka taagan oo nabad jirin oo deganaansho jirin marka Jamiila dib aan ka ahayn ciidan iscaajkooda iyo buuqooda ma aysan qabin aad ay joogoodu u deganaa maalmaha kamid ah ayaa waxaa dhacday Qalaf inuu u tagay Salwa oo ku yiraahdo Salwa baayo intaasoo sano ayaa isqabnay khilaafkooda ugu weyn dabcan wuxuu ahaa awlaad ma aysan haysanin wuxuu ku yiri intaasoo sano ayaa isqabnay awlaadna ima aadan dhalin waxaan rabaa inaan baxo oo naag guursado waxay tiri abadan kitaabkee gabdhaha la soo kala bixi jireen la soo kala baxan dabcan ma jirto gabar jecel ninkeeda adduunka ugu jecladnaa kala ka qaadato maxaa la yiraahdaa way diiday waxay tiri maya aniga iqabi meesid inta naag kala guursatid tan kale waxay tiri maba ku ogol anuu meelan kaaga socdo aakhiri adduun male adaan ku rabaa ilma la'aan aan ku rabaa dabcan ninkan wuxuu ahaa nin awlaad rabo qof kastaan awlaad rabo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu arsaaqo ku haysan baaraha nooga dhigo Qalaf wuxuu yiri may habeen waa aroosa maalin waa aroosa
waxay tiri maalkaad naag keentid ood naag aroostid ee runkaa noqota hadda afkaa ka dhahooysahay maalkaas ani aad xisaabtamaynaa waa u dhaaratay marka aad u yaabanaa qalaf wuxuu siri maxay ku dili doontaa maxay meelo kale ayuu ka fikirayo wuu imaad wuxuu yiri soo dhawaa salwa baayo xaaskayga koobaaday waan ku jeclahay adduunka kugu jeclahay naag ayaan doontay waan la isoo siiyey insha Allah isbuuca soo socdana waa arooskayga weekendiga abaa Jamiil waxay tiri makaaruna waa iga run ma noqon kartaa ma ka noqon kari Jamiil waxay tiri waa yaad isaas tahay ana waa isku buuqsanay guriga family-ga ayaan aada wuxuu yiri tawakkali cala Allah Jamiil yaan salwa iridday ka degatay waxayna tagtay markaska shurdada ama xafiiska askarta ayay tagtay waxayna u sheegtay sir la filan waayay oo dadkii dhan gacmaha dhaban ka saarteen waxay ku tiri soo dhawaada askaray ma xasuusatiin 20 maxaa la yiraahdaa wiilka dabcan 15 jir uu ahaa 10 sano ka hor waa 25 sano jir la wiilkii Cabdalle 10 sano ka hor ma xasuusatiin wiil la dilay oo la dhigi jiray Cabdalle oo ku dhintay beerta fulaan Abu Cabdallaha wiilkaas waxaa dilay ninkeyga adeerkiisa qalaf ayaa gacantiisa ku dilay askartu way baxeen waxay u tageen ninka la yiraahdo qalaf waa la soo kaxeeyay waxaa la keenay xafiiska askarta waa la wareystay wuxuu yiri yaa isoo sheegay waxaa la yiri waxa ku soo sheegtay xaaskaaga wuxuu yiri waa run horta 10 sano ka hor anigu waan dilay wiilka adeerku ahaa wayna iga fakatay xabada kas ma ahayn hooyadiisana ilo ogeed aan marqaati u haystaa hooyadiis ayaa kula ogeed haa waxaan u maleynaa hooyadiisa Cabdalle hooyadiis Jamiil inay warkaan sheegtay ani ayada bis isla ogeen 10 sano ayada ay qarinaysay anigana kas uma aanan dilin askartu way ka diideen waxay dhaheen beenlo waa tahay Jamiila waxay adduunyada ka qabtay hal wiilkeedii ayaad horteeda ku dishay xabad ayaa kaaga fakatay ayadana way ku qarisay askartii aad ay u yaabeen wax aqliga gali karnay noqotay adiga laftirka wiilka adeerka wada run sheegayso xabad kaaga fakatay waxaa jira wax la kas ikam maxaad u sheegaysaa alma wuxuu yiri aniga mowduuca in la qariyo fikradeyda ma ahayn Cabdalle hooyadiis Jamiil ayaa fikradda keentay in la qariyo anigana waan la qaatay alma askartii markay halkaas mowduucu maraayo waxaa la wacay Jamiilo ay ku yaaban oo dhahay wiilkii laga dilay Jamiilo oo madiga ah ayada qarisay aqliga ma gali karto alma Jamiilo waa loo wacay Jamiila markay aragtay ninkii askartii la joog warkiina la ogaaday aad ay u argagaxdo weyn xaday waxaa la yiri adima wiilka dishay ma ugu tala gashay maxaa la naxaysaa ma tiri waxaa jirtay tiri wiilka waa sax in la qariyo fikradda ana keenay wiilkeygii madiga ah in la qariyo fikradiisa aniga ayaa keenay askartu way yaabeen sidee ku dhacday waxay tiri ninkeyga Abu Cabdalle adduunka wuxuu ugu jecel yahay walaalkiisa qaliil haddii la yiraahdo qalaf aan dhahe walaalkiisa qalaf ayuu adduunka ugu jecel yahay haddii la yiraahdo maanta labadaada indhood soo bixi qalaf ayaa la badbaadinaa wuu yeelaa haddii la yiraahdo naftaada lagu bedelo nafta qalaf wuu yeelaa ninkeyga maxaa la yiraahdaa adduunka wuxuu ugu jeclaa walaalkiis qalafna wiilkeyga kas uma usadil sabuul ayaan guranaynay wuu noo imaaday wuuna salaamay wiilkan adeerkiis ayuu salaami rabay salaanta saas markuu ula aada asagana uu soo salaami rabay xabada fakata wayna ku dhacday qadarka ayaa intaas ku ekaa noloshiisa ayaa intaas ku ekaa marka anigu waxaan ka fikiray wiilkeyga aan adduunka ugu jeclaa madiga ah waan waayay ninkeyga wiilku adduunka ugu jeclaa madiga ah wuu waayay walaalkiisa qalaf uu adduunka ugu jecel yahay inuu waayo ayaan ka fikiray marka waxaan u qariyay inuu ninkeyga noqonin 2 mar gablan adduunka walaalku ka haystay inuu waayo wiilku adduunka haystan inuu waayo marka waxa u badbaadiyay walaalkiisa sidaas daraadeed ayaan u qariyay dilka wiilkeyga inuu dilay qalaf horta in meel kasta Jamiilad ka tama idin sheegay qalbiga ay Jamiilka ahayd dabcan dambiyo galay laakiin waxay badbaadisay walaalkeed halkii wiil oo la dhashay way badbaadisay maadaama wiilkeedii dhintay madiga ahaa waxay u badbaadisay ninkeeda walaalkiisa way qarisay waxay ku tiri markay xabada ku dhacdo waxaa iri carar qorigana waxaan dhex geliyay sabuulkan gurinaynay
asagana carar ayaan iri ballan waa lagu sheegi doono marka arinku saas uu ahaa oo waxay iga ahayd ninkeyga inaan u badbaadiyo walaalkiisa almuhiim maadaama askartii ay warkii gaareen ninkii Abu Cabdalla ahaana wuu gaaraa soo maahan Abu Cabdalla la wacay mowduuca loo sheegay naagtiisu ku soo booday madaxu macmac ka siiyay wuxuu yiri 15 sano anako oolad dhalin wuxuu Ilaahay 6 cunug noogu bedelo wiilkeeni marka Ilaahay wiilkeena ha u naxariisto walaalkeen uu badbaaday cafisuuna iga yahay dabcan xataa askartu mowduuc waa hor ahaa oo waqti fog soo wareego ahaaday waxa la maadaama adinka issaamaxdeen iskuna farxsantihiin tawakkalu ala Allah anakana waa idin saamaxnay Abu Cabdalla naagtiisa jaceelka badan u sii qaaday aad ayuu u jeclaaday si family-gu u kala badbaadisay sheekadii kamka eedo dhacdana ay u badbaadisay aqligeedu u shaqeeyay naagtii ahayd Salwa waa la furay 3 dalaaqo iyo suubis ayaa dhabarka loo saaray horta intaan la furin ka hor waxa la weydiiyay Salwa yaa ku sheegay Jamiila ma sheegin ninkan qalafana ma sheegin yaa ku sheegay waxay tiri habeen kasto ku qarwi jiray wuxuu ku qarwi jiray habeen kasta markuu saxdo ninkan malaha sheekadiisa camiran jiro Cabdallaan dilay wiilka adeerku ahaa waan dilay kasma ahayn kamay ahayd ilaahu ay cadaabin ilaahu badbaadi habeenku malaha filin yar shita oo qarw ah naagtan markaas halkaas sirta ku ogaatay Salwa bal naagtii cunuga madiga haysatay oo laga dilay ayaa sabartay oo aqligeeda shaqeeyay oo ninkeeda walaalkiisa u badbaadisay ayadiina masayr daraadiisa ay u soo sheegto inaan ninkan la dilay rabtay marka almaamaashii ku fashilantay abaahili waatii la furay ninkana naagtiisa doontay uu aroosay Ilaahay awlaad siiyay bashbash iyo barwaaqo iyo waxay ku noolaayeen bariis caana leh cidii oo dhan dheendhiin isku ahaayeen mashaakilkiina wuu dhamaaday waana la issaamaxay sheekadii sidaas quruxda badan ayay ku dhamaatay dabcan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadow gacanta noo magaliyo anakana qalbiyadeena ha isjeclaysiyo sheekadan sheekada xigta si aysan ku dhaafin subscribe dheh kambleel ku furo like t-shirt ma ilaa wax ma ka dhibeysa ina adeero anakana channelka ay noo qorxi doontaa insha Allah bye bye